shacbiga guud ahaan iyo taageerayaasha xisbigaba waxaan ugu baaqaynaa inay amniga ilaaliyaan. waxaa kaloo aan ugu baaqaynaa una sheegaynaa dhammaan shacbiga Somaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba inuu maanta wada hadallo bilaabmay komishinka doorashooyinka qaranka iyo xisbiga wadani si loo xalilo codsiga iyo tabashada uu gudbiyay xisbiga wadani. wada hadalkii koowaad waanu yeelanay maanta, waanu u gudbinay wixii dareena iyo tabashooyinaba aanu aragno in xaaladan lagaga bixi karayo oo ah isqancin kuna saabsan dhammaan wixii xisbigu dalbaday inay fuliyaan. codsiga waanu gudbinay, waxaanu suumaynaa wada hadal labaad oo aanu ku heli doono go'aanka komishanka. waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan shacbiga iyo gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inay naga warsugaan. waxaanu rajaynaynaa xaaladaas in la xaliyo oo xal laga gaaro qanciya xisbiga iyo taageer